soo nafteediyoniyadeduna kumanashay sawkalku nugulo kunici karin kuguma nabin soo nafteediyoniyadeduna kumanashay soo nasiibkiyo ha hele niyad samidii ha hele niyad samidii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan joogaa qaybta sare ee Luxembourg waxaana weeyii qaybta hoose ee magaalada dabcan sad aragtaan iyo qaybta sare magaalada oo qaybtan aan jooga qaybtani waa magaaladii hore ee Luxembourg dabcan waxay leedahay hawo macaan waxaan rajaynayaa inaad hal mar timaado Luxembourg oo ku damaashato waqtina ku qaadato waxa jira dad badan oo Soomaaliya oo ka soo falceliyay fologan ka horeysay oo ay ku doorbideen inaan sii wado vlogyada Luxembourg iyagoo su'aalo badan iga soo weydiin Instagram-ka, Facebook-ga iyo soo kale YouTube-ka laftarkiisa comment igu soo qorayay way jiraan dad badan oo la soo xiriiray oo information-ka wadanka ka helay maadaama Soomaalidu dabcan aanay wadankani aqoon fiican u lahayn waxaan doorbiday inaan sii wado mashquul kadib vlogyada Luxembourg qaybtan waa qaybta hoose magaalada qaybtan ay muuqatan waa Kirchberg oo waa qaybta sare magaalada waxaana ku yaala bangiyada ugu waaweyn caalamka ayaa ku yaala bangiyada ugu waaweyn sida Google-ka soo kale waxa ku yaala European Union-ka soo kale waxa ku taala maxkamadda European-ka isla dalkan waxa ku yaala halkii midowga Europe lagu aasaasay ayaa ku yaala iyada laftarkeyga waan tagi doonaa qaybtani waa webiyo wadanku wuxuu leeyahay webiyo badan waxaana jira wadooyin tareen ah oo wadanka isku xidha qaybta hoose iyo qaybta sare dabcan wadankan waxa uu xuduud la leeyahay dalka Jarmalka iyo dalka Belgium-ka iyo soo kale dalka Faransiiska wadanka waxa ka taliya boqortooyo lagu magacaabo Grandush soo kale waxa ka taliya boqortooyada kadib ra'iisul wasaare loo yaqaano Shafi dhabahantii wadankan boqortooyada iyo ra'iisul wasaaruhu way kala awood sareyaan boqortooyada ayaa awood sareysa soo kale ra'iisul wasaaruhuna awoodda dawladda iyo wuxuu leeyahay baarlamaanka wadanku waxa uu leeyahay laba baarlamaan ayuu leeyahay waxayna leeyihiin laba guri oo guriga madaxtooyada ku xiga waxaad ku arki doontaan vlogga dhexdiisa waxaan rajaynayaa inaad vlogga ka heli doontaan haddii aad ku cusub tahay kanalkani subscribe saar si aan u sii wadno vlogyadeena wixii fikra iyo akhbaarana iigu soo qor commentiga ama hoosa kanalkana subscribe soo dheh nasiibkiyo ha hele niyad samidii ha hele niyad samidii naqma soo rogi badan dhabahaantii ma yaqaanaan Luxembourg dad badan way barteen vloggeena kadib oo Soomaaliya caalam kale oo laga yaqaanaa laakiin Soomaalida dhexdeeda uu ku cusub yahay because Soomaalida halkan ku nool tiro ahaan way yar yihiin waa 67 qof dad ku dhaweeyay dad badan waxay raadinayaan information-ka dalkani si ay u bartaan waliba dadka Soomaalida danaynaya ee Yurubta kala jooga dhabahaantii waan wadayaa vlogyada inta aad ka baranaysaan wax badan ka faa'iideysaan hadda waxaan hortaaganahay mid kamid ah kaniisadaha dalka ugu weyn qaybteeda dambe halkana waa taalada taalooyinka dalka waxa weeye mid kamid ah boqortooyada Grandush qof kamid ah family-kiisa oo lagu muujiyay halkani wadanka waxa ka taliya boqortooyada Grandush ba ka taliya ra'iisul wasaarahana waxa la dhahaa Alex Shafi baa la dhahaa ra'iisul wasaaraha wadanka hadda wuxuu hayaa laba xil waa wasiir waxana weey ra'iisul wasaaraha dalka vloggan waan sii soo naxuustiyoha naarifufti naxasoo kori sawnaruuro inaska caashaqa ina nugnana nidarkuma gelin soo nafteediyo naska caashaqa ina nugnana nidarkuma gelin halkani waa albaabka hore ee guriga boqortooyada Grandush waana guriga baarlamaanka qaybtiisa dambe inkastoo dalku leeyahay laba baarlamaan laakiin qaybtani waa qaybta hore ee albaabka ama irida laga galo guriga boqortooyada soo gobaadey naska caashaqa ina nugnana nidarkuma gelin
waa iridda hore ee boqortooyada Garaanduush waxaana weeyay labada guri ee baarlamaankuna waxay ku yaalaan qaybta kale qaybtani waxa istaaga ciidankan dhab ahaantii waxay hormaraan ama waardiyaan ama gaardiyaan albaabka hortiisa dhab ahaantii arkaysa boqortooyada caalamka ama wadamada kale madaxtooyadoodu ciidan badan ma lahan waa wadan dad amni sameystay boqortooyada Garaanduush waa boqortooyada ka jirta wadankan ee qarnigii u dambeysay dhan maamuleysay wadanka asliyana waa boqortooyo marka boqortooyada laga yimaado wadanka waxa maamula ra'iisul wasaaraha ayaa maamula oo magaciisa la Shaafi gurigu wadanku waxa uu leeyahay laba baarlamaan buu leeyahay labada baarlamaan waxay kala leeyihiin laba guri isla wadamada kale ma leh hal baarlamaan oo hal guri leh guriga boqortooyada markuu boqorku joogo dhab ahaantii caalanka wadanka ayaa hoos loo dhigaa laakiin inta uu boqortooyadu ay joogto meesha ama Garaanduush uu joogo calaamadani waxa weeye way taagnaadaan dhab ahaantii waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka baran doonto dalka Luxembourg fologeena waan sii wadan doonaa hore isoo raaca halkani jooga dad badan oo dalxiisayaal ah oo soo booqda caadiyan ama waqtiga badankiisa soo booqda halkani dhammaan dadkani waxay wataan buug ay ku qoran yahay taariikhda boqortooyada Garaanduush iyo waqtiga gurigan la dhisay ayay wataan dhab ahaan dadka soo booqdayaasha wadankan ee ka yimaada wadamada jaarka la ama wadamada ka fog waxay ku soo qaataa waqti badan ay qaataan laakiin nagoon ka nasiib badanahay adoo gurigaaga jooga ay dabcan daawanaysa waxaan rajaynayaa inaad ka heli doonto taariikhda dalkani aad wax badan ka baran doonto dalkani wuxuu ku yaalaa North Europe ayuu dhaca Luxembourg waxaana lagu magacaabaa Petit ama Swiss-ka yar baa lagu magacaabaa sababtoo ah dekad wadankan wabiyuu leeyahay laakiin Yurub ayuu dhaxbartan u yahay dhammaan badeecooyinka Yurubna isaga ay ku kala dhex gudbaan فلوج أيام أسكع عاشقة إينا نقولنا نذركم قليل قال لي دونا qaybtan oo ah qaybtii gurigii horeysay ee magaalada laga dhisay iyo taariikhdii la dhisay halkan oo kale waxa ku taala iyaduna kaniisada wadanka ugu qadiimsan ayaa ku taala sidoo kale magaalada laba qaybood ayay u kala baxdaa saas falaga hore ku soo daawateen waa qaybta hoose iyo qaybta sare halkan waxa isku xidhaa qaybta hoose iyo qaybta sare qaybtan waxa la Kirchberg qaybtana waa magaalada qadiimka weey halkan waxa ku yaala hogog aanan imka la ogoleyn waqtigii corona diraadii loo xiray laakiin waa hogii ay Luxembourg hore ku difaaci jirtay wadanka marka lagu soo duulo wadankan waxa inuu gumeysay isku day Germany iyo Faransiis laakiin labadaba way la dagaalantay waqti bayna ay ku qaadatay macnaha inay dagaalkaasi iskaga difaacdo sadaradeed waxa loo sameeyay hogag qadiimiya oo taariikhiya horeyna fulageena wadan doona hay isoo raac halkani waxa ku yaala gurigii u horeysay ee dalkan laga dhiso iyo taariikhdii la dhisay ayaan toos u booqan doonaa ila soco waxa taariikhda wadankan ama guriga la dhisay waa taariikh waqtiyo hore ah oo 1800 ilaa meelaha ku dhow laakiin dhab ahaan waan soo wada check gareyn doonaa wanan aadi doonaa aragtaan qaybtan waa webiyada kala qaybin jiray Luxembourg tii hore waliba laba qaybood kala qaybin jiray hadda waxaan joogaa qaybta sare ee magaalada dabcan magaalada waxa ka dhacay roobab badan laakiin webiyadani waxa loo sameeyay nidaam ay ku shaqeeyaan ayaa loo sameeyay sad muuqaalka ku arki kartaan maahan webiyo waxyeelaya dadka shacabka ama population-ka ku nool meesha u dhow dhab ahaantii waan ka helay magaalada hore ee qadiimka Luxembourg kaliya waata waxaan fologeenu ku daaran yahay inaanu soo gudbino magaalada hore ee qadiimka ee Luxembourg fologa hore waxa ku soo daawatay xaafadda Kirchberg oo kaliya laakiin warajinaya fologa ku xiga in magaalada Luxembourg ee modernka ama casriga inaan folo qurux badan inaga soo waxaan soo gaarnay qayb kamid ah meelaha dadka jecel dabcan ay ku xidhaan ama ay ku muujiyaan jacaylkooga halkan waxay niga muuqda faraagisha jacaylka oo dabcan qof kastaba ku xidhay taariikho kala duwan ayaa halkan niga muuqda dhab ahaantii dadkan ku xidhay qaarkood waxa ugu qoran taariikhaha ay ku xidheen iyo waqtiyadaasi oo ah muddooyin hore furahana waxa lagu tuuraa sida Paris oo kale halkaas webigaasi ayaa lagu tuuraa qofka haddii uu gaarsiiyo awood ahaan haddii uu gaarsiiyo soo kale halkani qufuladan dabcan ku wada xidhan waa qufula qadiima oo lagu xidhay waqtiyo hore sida inii muuqato soo nabaadiyo nagaashka xareer nagikum aanahin sawni taakhiyo nabardamqada inamuday soo nabaadiyo nagaashka
nagaasha xareer naga kuma nihin sawniskii xalayha manka nuura manka nuura nafisu maladin soo nasteexiyaha naxariis jacayl kumuu shidin sawniskii xalayha manka nuura nafisu maladin waddan asalkiisu sidaa ahaa ama bilowga waddanka ayaa hal mar waxa uu isku bedelay sidan aad arkaysaan dabcan waxaan soo gaadhay qaybta hoose ee magaalada halkan waa webiga aad ka arkaysaan kilibka qaybta hore kilibka dabcan qaybtanu ka nimidnayna waa qaybta sare haddii dabcan u fiirsato magaalada waxa ka dhacay roob weyn ba ka dhacay halkan webiyada loogu talagalay dabcan wad aragtaa guryahana inta ay u jiraan webiga dadkan waxay ka taxadareen in badan waxay ka taxadareen dabcan in wax dhibaato u geysto daadadka xilliga roobka da'a in run ahaantii fologyadani waan wadi doonaa ilaa inta ay dad badan ka baranayaan Luxembourg ay dad badan wax badan ka faa'iideyaan Soomaali badan oo information ka raadinaysa Luxembourg waxaan rajaynayaa dabcan inaad ka qanci doontaan soo kale waxaan kaa codsanayaa haddii ka cusub tahay markasta subscribe-ka ha iloobin fologana sii wadan doonaa qaybtani dadka badanka waxa degan dadkii hore magaalada qadiimka asriga u lahaa degan ee Luxembourg-ka lagu magacaabo Luxembourg-gashka wadanka dadka soo galeytiga ah iyo dadka wadanka degan asliga dhab ahaantii wax farqiya tiro weyn uma dhaxayso sayd u badan dadka soo galeytiga wadanka ama ka yimaadaan wadamada Yurub dhexdooda ama ka yimaadaan meelo kale ha ka yimaadaan marka la leeyahay soo galeyti iyo refugee way kala duwan yihiin qaxootiga iyo soo galeyti way kala duwan yihiin sababta soo galeyti waxa jira dad ka yimid Faransiiska soo shaqo tagay oo laakiin European oo iyagu refugee aan ahayn laakiin dhamaantood waxa la isku yiraahdaa idkhaanshe luqadda Faransiiska ama soo galeyti baa la isku yiraahdaa dabcan waan sii wadan doonaa fologeena hay ila soo soo nasteexiyaha naxariis jacayl kumuu shidin sawnaruuro inaski caashaqa ina nugnana nidarkuma gelin soo naftaydiyo naaska caashaqa ina nugnana nidarkuma gelin soo gobaaday naska caashaqa ina nugnana nidarkuma gelin saykigayga naaska caashaqa dalkani waxa uu leeyahay webiyo badan buu leeyahay shalay wadanka waxa ka dhacay roobab saaid u badan ba ka dhacay waxayna qaarkood sababeen inay galaan biyaha guryaha ay galaan laakiin nadiifin kadib waxaad arkaysaa dad shaqaale ku jira nadiifin dadka marada si fiican u aragto inkastoo Soomaaliland oran karin halkan waa webiyada dhex mara magaalada ama magaaladii hore Luxembourg kala qaybiya waliba labo kala qaybiya dabcan waa arki kartaa webiyadan waxa loo sameeyay process ama nidaam ay ku socdaan baa loo sameeyay kaas oo ina wax ku yeeli karin shacabka ama guryaha u dhow webiga hareerihiisa wadankana dabcan saaid ayuu u webiyo badan yahay sad in muuqata ama aad aragtana dad Soomaali soo dhaho dabcan waxaan soo gaadhay qaybta hoose ee magaalada webiyadani waa webiyada ugu waaweyn ee dhex mara magaalada qaybtan dul taaganahay laftarkeegu waa webi sad aragtaan dhab ahaantii halkani waxa ku yaala guriga taariikhaha lagu soo bandhigo maxay ahaydeen taariikhaha qadiimka in haddii aad dabcan u fiirsataan waxa arkaysaan guryaha lagu soo bandhigo taariikhaha qadiimka ama lagu hayo waxyaabaha qadiimka caadiyan lagu ilaaliyo gurigan wuxuu leeyahay taariikh weyn Luxembourg iyo shacab weynaha Luxembourg dhab ahaantii halkana waxa weeye qaybtii catabadihii laga kori jiray magaalada hore qadiimka sad aragtaan catabadahani waxay ku yaalaan bartanka Luxembourg tada kale catabadahani dabcan waxay isku xidhaan magaalada qaybo badan ilaa laga gaarayo qaybta sare ee magaalada dhab ahaantii waxaan rajaynayaa fologani inaad Luxembourg kaga baratay waxyaabo badan oo dabcan hore u aqoonin waxaan tagi doonaa inkastoo ay shaqo ka socoto qaybtan oo nadaafad maanta laga wado
waxaa ku yaala meelaha lagu caweeyo maalmaha sabtida iyo axadda ayagu miisiga macnaha u qaabilsan lagu soo bandhigo hibooyinka dadka ay gaarka u leeyihiin hore waxaynu aadi doonaa halkaas baynu aadi doonaa waa isoo raacaysaan dabcan okay ugu dambeyntii waxaan soo gaadhnay dabcan meel aan lahaa waanu tegaynaa oo dushaas sareed ka soo arkayseen markaan joogay ama halkaa ka soo arkayseen godadkani waa godadka laga difaaci jiray Luxembourgtii hore tournails baa loo yaqaanaa ama tournail baa loo yaqaanaa luqadda Faransiiska ama luqadda Luxembourgishkana gaab in la yiraahdo malaynaya dhab ahaantii waa aragtaan godadkan dabcan waa godad si farsamo loo sameeyay waliba waa godad gacanta lagu jaray aan wax mashiin loo isticmaalin waxa ku muuqata Luxembourgtii hore inay ahayd dad xadaariyiin oo xadaarad aad u sareysay lahaa waayo godadkani waxay iskaga celinayeen mustacmariintii Faranska iyo Jarmanka oo xilliga weerar ku ahaa doonayna magaalada istiraatiijiga ama wadankan istiraatiijiga inuu qabsado halkan waxa weeye qaybaha lagu soo bandhigo maalmaha sabtida iyo axadda waqtiga la isaga qaato waana qayb meesha saraad ka soo arkaysan dabcan oo waliba aan in la haawin tagina fologa dhexdiisa waynu soo aadnay fologeena waan sii wadan doonaa waxaan u laaban doonaa qaybta sare ee Luxembourg maadaama waqtigu noo saacideeynin inaan halkan qayb badan waqti badan aan ku sii bixino fologeena way socon doonaan haddii wax fikraad ka qabto dabcan hoostaada ku soo qor Luxembourg maxaad ka aaminsanayd si maxaad ka bartay hadda ka hor dalka Luxembourg aqoon fiican ma u lahayd mise waa markii kugu horeysay dhammaan commentiga ku soo xaraf waa kan qaybta hore ee Luxembourg qaybta waxa weeye qaybta lagu soo bandhigo dhaqamada maalmaha waxa soo galay waxoogaa biya oo xagga wabiga ka imiday maadaama roobab badan waddanka ka da'ay waxaan ku socota nadaafad suuragal ma inaan gudaha sii galno halkan maan ka laaban doona dabcan dhab ahaantii bal fologani waxaad ka faa'iiday waxyaabo badan oo ah boqortooyada cidda waddanka ka talisa sidoo kale waxaan maalmaha soo socda ka sheekayn doonaa oo fologa si gaar uga sheekayn doonaa waliba anoo gurigayga fadhiya hadduu rabbi aqbalo dadka refuge-ka waddanka say ku yihiin dabcan waxay ku haystaa waddanka tixgelin badan sidoo kale soo galeetiga waddanku dhab ahaantii dadka ugu badan ee waddanka ka shaqeeya 30,000 ilaa 40,000 oo qofba maalinta ka shaqeysa waddanka oo soo galeetiga ka yimid waddanka Belgiumka iyo Faransiiska Germanka dadka waddanka u dhashay ee Luxembourg iyo dadka ka qaatay sharciyada wali ma gaadhin 1 milyan ama population ku nool Luxembourg wali 1 milyan muu gaadhin dabcan fologan halkani waa bartanka Luxembourg waxaan u soo laabtay qaybta sare ee magaalada dabcan waa aragtaan waxa ka shaqeeya gaadiidka loo yaqaan tramka gaadiidka waa gaadiidka saaid uu kala goosho xaafadaha dhexdeeda buralaydi sheekhiyo bixin duulayo buralaydi sheekhiyo bixin duulayo oo beri samaado xooluhu barqanaya oo beri samaado xooluhu barqanaya sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure oo sida loogu baahdaa kalgacaylkii burure kugu badhaadhay daa'imada barwaaqaystay aragtida udan wiilashayda ku buseela egmada kugu badhaadhay daa'imada barwaaqaystay aragtida udan wiilashayda ku buseela egmada hadda waxaan soo gaadhay bartanka magaalada waana qaybta lagu sugo taraamka caadiyan qaybta aragtaan waa qaybta ku shaqeysa taraanka xaafadaha ku kala goosha waxa dhici karta codkayga inaad maqli weydaan sababtoo ah waa bartanka magaalada waa meel saaid u mashquul badan dhab ahaantii codkana uu mashquul badan ku jiro
dabcan fulaga waxaan soo aadnay mar labaad oo laga maarmaan noqotay inaan qaybta sare magaalada nimaadno si aad bal wax aan ugu darno fulageena intaan fulageena soo koobin dabcan waxaad arki doontaan qaybo kale ama muuqaalo kale oo qurux badan oo qaybta sare magaalada baliyada xareediyo togaga burqanaye baliyada xareediyo togaga burqanaye ubutaacay ka imaha boholyow galoo qabo boholyow galoo qabo farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidahe farxad lagu bogaadshagaad la wadaagtay bilcidahe barahadhay daymada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u busehelay egmada kugu barahadhay daymada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u busehelay egmada tabtani waxa u ekayd Luxembourgtii hore iyo siday ahayd dabcan iyo qayb ay u kala bixi jirtay halkan waxa ku yaala taariikho ku kala qoran saddexda luqadood ee dalka luqadda Almaanka luqadda Luxembourgish iyo luqadda Faransiiska iyo luqadda Ingiriiska oo luqad international dabcan waxaad ku arki kartaa taariikhaha Luxembourgtii hore iyo dabcan sida ahayd qaybta u kala bixi jirtay marka laga yimaado boqortooyada Grand Duche iyo qaybta magaalada uu ka deganaa magaaladu waxay ahayd qayb hoose iyo qayb sare dabcan saad u kala arkayso qaybtana kaliya xilligaas waxa dhisanayd qaybta hoose ee magaalada qaybta sare waa qayb moderna oo sanadada dumisay wadanka lagu soo kordhiyay wadankan runtii haddii aanad adigu Soomaaliya hore u aqoonin waa wadanka ugu dhaqaalaha badan wadamada Yurub waxaana loo yaqaanaa Swiss-ka yar macnaha maadaama uu yahay wadan u kala gudbiyo wadamada Yurub badankooda dhexbartan u ah alaabahan ay ku kala gudbistaan alaabta ka imata Belgium alaabta ka timaada Faransiis ta Jarmal ka timaada dhammaan halkan bay soo wada martaa iyo wadamada Yurub ugu waaweyn intooda badan halkan ay badeecadu soo wada martaa population ku 1 milyan ma gaaraysaa falaga horta dhexdeeda aad ku soo aragteen clipkayga waxaana wadanku uu leeyahay dhaqaale saaid u fara badan ay wadanku leeyahay dhabaantii waa laga shaqaystay dad kale wadanka way dhisteen Soomaaliya taas iniga baahan fahmaysaan markaasi dadka Luxembourg ka aaminsan wadan yar oo la garanaynin horta taasi waa taa weeyi wadanka ugu dhaqaalaha badan ee maanta Yurub ka jira wadamada Yurub wadanka ugu dhaqaalaha badan populationkiisuna uu saa u kooban yahay haddana magaalooyinkiisu saas ay wada qurux badan yihiin waliba laga shaqeeyay waliba la dhisay waliba dadka wadan kale ay ku tabceen ay kharash geliyeen waxa Luxembourg haddii Luxembourg doonaysa inaad wax ka barato Soomaalida wadankani dadka Aasiya dadka ku nooli waxay u kala baxaan laba qaybood dad Aasiyan oo wadanka ku nool oo waqti badan ku noolaa iyo dad wadanka iyaguna waqtiyada dambe soo galay oo iyagu laftigooda waqti badan ku qaatay wadanka labaas loo kala baxaan wiilashayda ku busela egmada kugu kaliya qaybtan aan joogno maanta waa magaalo waxa weeye qaybaha qadiimka ee magaalada manu joogno magaalada modernka ama qaybta cusub ee magaalada manu joogno saaid wadanku uu yahay aan waxaan joogaa caasimada qaybtana waxay ku taala caasimada dalka Luxembourg ku taala wadanka waa Luxembourg soo kala caasimadana waa Luxembourg
qaybtani waa qaybtii hore ay boqortooyada geli jirtay waana qaybta hoose ee magaalada dabcan saad ka dhex aragtaan taariikhaha aan falaga dhexdiisa aad ku arkaysaan godadkan inii muuqda godadkaas inii muuqda waa godadka laga difaaci jiray magaalada xilliga la soo weeraray ee cadowga kala soo weeraraya ee wadamada kale kaga yimaanday maadaama waqtigaasi jiray mustacmar Faransiiska iyo Jarmalku ay rabeen waddankan ay qabsadaan maadaama uu yahay waddan istiraatiijiya oo ku yaala dabcan meel istiraatiijiya odayaha buruulihi madowgii bariinsaday samadii kabiyaad bidhantiisa leedahay samadii kabiyaad bidhantiisa leedahay kugu baraharday mada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u busehelay egmada kugu baraharday mada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u busehelay egmada kugu baraarida imada barwaaqaystay aragtida guda wiilashayda ku buseela egmada kugu baraharday mada barwaaqaystay aragtida gudaha wiilashayda u busehelay egmada waga baryaye sagal baal gudutiyo waga baryaye guntii iyo gunaanadkii fulageena dabcan waxaynu soo wada qaadanay waqti qurux badan dib ahaantii waan ku faraxsanahay inaad Luxembourg wax badan ka baratay fulagana wax badan aad ku baratay soo kale anu keligii safarkan kuma jirin xitaa dabcan adigu wadi la socotay maxaa yeelay aniga iyo adigu manu kala hadhayno hal meel baynu wada soconaa dib ahaantii fulaga Luxembourg wuxuu ahaa fulag dadka soo codsadeen asxaabtu maadaama fulag hore ka soo sameeyay kani waa fulageeni labaad waxa hadhay fulageena saddexaad oo isagana aan soo sameyn doono isla usbuucan dhexdiisa soo kale waxaan tagi doonaa bal Soomaalida Luxembourg ku nool in bal qof ama laba qof ama saddex qof oo information fiican naga siiya inaan soo qabto kolahaan ayaan rajaynayaa anigu waddanka waan ku noolahay laakiin bal dad kale aaraadii fikirkeyguna ay aaminsan yihiin inaan inii soo gudbiyo waa mid laasima ama daruuriya soo ama obligate waaqa ama obligation intaas oo dhanba dib ahaantii waddankan Luxembourg maadaama Soomaalidu ku yar tahay dad badan ay warbixintiisa raadiyeen waxaan u malaynayaa in fulagani uu kaliya ka barayo sidoo waddanku u yaala iyo meelaha qadiimka ee waddanka iyo waxyaabahaasi laakiin dadka qaar su'aalo khaas ay soo weydiinaya jiray dib ahaantii su'aalahaas qaar way adag yihiin oo lagama jawaabi karo qaarna waa qaar iska easy oo fudayda markaasi waxaan rajaynayaa insha Allah haddii bal wax fulagan aad ka fahanto ama haddii aad wax ka fahmi weydo inaad igu soo weydiiso commentiga dabcan waan ku soo reply gareyn doonaa waxaad igu soo weydiiso fulagan intaas wuu noogu dhan yahay waxaan soo wada qaadanay maalin qurux badan waxay la qaadatay maalin qurux badan waxay la tagtay safar qurux badan mana kala hari doono fulagan fulagyada ku xigana tabtaas oo kale ayaan isku raaci doonaa halkan waa mid kamid ah baaqyada lagu nasto ee waliba ku yaala buuraha dhab ahaantii waxaan rajaynayaa adiguna inaad halkan igula nasanayso
laakiin agteeda kama muuqatid waa ka xumahay laakiin fologa ku xiga halkan waad imanaysaa ha iloobin weliba agteedaad ka muuqanaysaa intaan folog lamida ku kulmi doono subscribe like kanalka soo saar hana iloobin inaad fariintaada iyo fikirkaaga hoosta ku soo qorto waa aniga Abdiraxmaan Doolara oo inila salaamu calaykum nooli kulanta